waxaan cidina igu eedaynayn baan sheegayaa maanta sheeg baa la yidhi ilaahay roob alla sheene roob ilaahayow roob noo keen ma cid baa hadda nin baa booday oo yidhi ani inka dangleta kaasuu yidhi waayo gaalaya galabti dhumyeeri oo ka saanta dhunto fadahoayta langhel ninkii roob allaha keeno uu ka xanaaqay wuxuu yidhi anaad igu dan leedahay maxaa dhacay geelaygii baa galabta lumay buu waxaad rabtaa inaan la helin oo roobkii inta saantii iyo tirtiranto xaasidnimaad ka gaartay weligaa adoo roobdoon ilaahay ka baryayaa laguma arko maantaad ogaatuu yidhi xaaladdan marka wax walba oo aad samayso qof bay dhibtaa mushkilad ma leh wixii ilaahay uu kula ogyahay ayaad sheegaysaa ayaan sheegayaa horaan u soconaya ilaan qofka isagaa isog ilaahayna waaba sheegaa bal ilinsaanu calaa nafsihi basiirat walow alqaa macaadiiro isagu siduu doono waxa u sheegto ha is ammaano waxaasaan u socdaa ha dhaho laakiin isagu waa is og yahay wuxuu damacsan yahay ilaahayna waa og yahay marka waxaan jeclahaa aniga wixii aan sameeyo in laygula xisaabtamo xumaan iyo samaan aan layska kay ammaanin runtii markaan inta imid meel walboon tago su'aalaan weydiinaya dadka anigana isweydiinaya su'aalihii baan maantana ku bilaabaya ilaahay amarkiis waxaan arkaa dad aad iyo aad u horumaray dhaqaalaha siyaasadda shalay hadda wiil baa mayor noqon rabaa laygu yidhi oo la endorse gareeyey oo amazing kenya haddaad tagto ganacsiga waa yaabaysaa meel walba waa sidaas ilaa soomaaliya ma ogyahay أنا waxaa isweydiinaysaa wararta if we flourish everywhere else why not in our country maxaa si naga su-aashaas mar walba waa isweydiiyaa talabaadna waxaa isweydiiyaa 60 sano isku si ma qofku si uun ma ahaan karaa waddan 20 milyan 30 milyan weli tiro rasmiya ma jirtee sidii uun ma ahaan karnaa haddaan ka sii darna ma ogyahay haddana uun meeshii aan ku soo noqonan waa maraan burbursannahay maraan burbur u socno maraan wax yar burburka ka soo waxba kuma lihin miya adduunyadan inta yaroo soo fakatoo meelahan soo aadda ma ogyahay oo ayagan rafaad ku noolaa lacag walba oo aad samayso waxba kuuma tarayso ilmihii baad kor u haysaa maalin walba sanad walba waa kugu weynaanayaa waxaa is leedahay waddanka goormaan u celinayaa meeshii dhulkii wax si fiican ugama gadan kartid ilmihii waxay ku leeyihiin hadhow 16 jir 20 jir hadduu gaaro aad celiso wuxuu ku leeyahay send me back to my country war waddankan sooma maya is your country ku leeyahay adigu waddankaagu yahay Soomaaliya aniga kayga ma ah because you spend so many years here reference ba male canugii haddaad celin lahaydna balaayaad kala cabsanaysaa dhimasho iyo rafaad intaad ku haynaysaa waxaa is leedahay sanadka dambe kan dambe madaxweyne cusub baa imaan doona xaaladda waa fiicnaan doontaa kan gudaha joogana waa rafaadsan yahay kan bannaanka joogana waa rafaadsan yahay duruufahoodaba ha kala duwanaadeene 60 sano waayo sidaas aan u nahay ilaa maskaxda culays inay nagu hayso maskaxda haddaadan isticmaali karin oo aadan isticmaalayn waa un kugu raran tahay waa un rar culays ku saaran weyo hoggaan la'aan iyo system la'aan ayaa noogu daran markaan dhinac walba ka fiiriyey systemkii oo korrabta ah iyo hoggaamintiiyo sidii la rabay aan ahayn for the last hal madaxweyne oo si gaara loogu eedayn kara aniga ma arko haddaad rabto waa kala dooran kartaa qabiil ku kala dooro saaxiibtinimo ku dooro midaad kor ka necab tahay midaad kor ka jeceshahay uun u kala dooro laakiin xaqiiqdu wax badan laysma dhaamo islaam baa ilmo wada caasi ay dhashay ilmaheedoo dhan baa caasi ka noqda marka
midka ugu caasisan iyo kan xoogoo roon iyo kan wixii bay rabtaa inay kala saarto. waxay tiri ummadaha roon hasangaa roon eedinga roon hang yoo dhong laa ilaaha illallah maxamedaa roon malaha xasanaan dhaam aadan ilmihii bay tirinaysaa. kuwan waxay tiri ayagoo dhanba laa ilaaha illa waxba isma dhaamaaray ka wadhin. xitaa kii xoogoo wanaagsan systemkii baa u diidaya inuu wuxuu rabay sameeyo because systemka corrupt ah isaguna. marka waa chicken and egg wixii la dhihi jiray dadka wax barto ma ukuntaa soo horeysa ama doorada ama digaagadaa soo horeysa. waxa inta marka dadka markay halkan yimaadaan ay nolol wanaagsan u sameeyaan valueskii islaamka uu lahaa muslimka ayaa ay qaateen dadka. waa non-muslim countries with islamic values wixii annaga nalaga rabay oo cadaalad, good governance, inclusive politics, social politics, human rights, wixii kulli oo ilaahay noo soo dejiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaamna loogu soo dhiibay oo nalagu yiri weliba ku dayda laqad kaana lakum fii rasuulillah uswatun xasana. wixii iyagu qaateen annaga magacii baa noo haray. saasay tahay. laakiin tusaale ahaan dadkii ku dayday rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo hogaaminta uga dayday waxaa ka mid ah cumar bin khataab calayhi salaatu wasalaam. gaal buu ahaa markii hore, diintii muslimku u qaatay, muslimuu noqday. waxyaabaha lagu xusuusan kara maxaa ka mid ah he was accountable, qof la xisaabin kara u ahaa oo aan looga baqayn in la xisaabo. islaam baa waa wareegi jiray baa la yidhi habeen buu arag meel dab uu ka baxayuu arkay isaga iyo ninkii la socday meeshii uu tagay. haye asalaamu calaykum yaa ahla doo, xitaa hadalkuu wanaajinay yaa ahlu naar ayuu diiday baa la yidhi inuu yidhaah. haye seetin fiican islaam baa dheri baa dabka u saaran, ilmo yarna way haysataa oo ooynaya. markaasuu ku yiri baa la yidhi canuga yar muxuu u ooynayaa? waxay tiri waxaan siiyaan la'a wallahu baynanaa wa bayna cumar. oo cumarna aakhiran ku xisaabtamayna mana taqaan ayada cumar bin khataab amiir almu'miniin ma taqaan. oo maxaa dhacay cumar muxuu ka hadlayay yatawallaa amranaa uma yakfalu cannaa bay tiri intuu madax noo noqday buu naga tegay oo uusan meel nagu ogeyn oo baahi halkan nagu haysaa. inta orday buu daqiiq bur wax shiidan soo qaaday buu lasoo. xitaa ninkii la socday madaxda waa taqaanaa waxbaa loo qaadaa oo ka leex waxbaa kan anaa kaa qaday baalka jawaanka kaasuu yiri iga durg hooyada ku weydaya anta taxmalu wisrii yowma alqiyaama aakhiran culayskayga waa adigaa qaaday. fiiri islaamkaasuu accountable u yahay. hadda hadday tahay ka waran waaba la xiri lahaa soo maha. waxaa kaloo la sheegaa wiilkiisa inta meel tegay amiirulmu'miniin cumar wuxuu arkay beertii muslimka neef qurux badan oo geeda uu arkay baa la yidhi oo yaa iskale buu neefka wiilkaagii baa leedahay. ta u yeer uu yiri xagee ka keentay maashaan? waa soo gatay dhulka muslimiinta beerta sida dadka muslimiinta loogu ogol yahay lagu daajiyo ayaa ana la igu daajiyaa buu yiri. wax xumaana ma geysan aab ilaan aabihiis waa ogyahay ninaad adag inuu yahay. waxaasu ma jiraan. wiilkii cumar waaye amiirulmu'miniinta waa inta la yidhaahaa biyaha kuwa ugu fiican neefka laga waraabinayaa.
meesha ugu daaqa fiican baa lagu geynayaa. Aniga madaxaygu yiri waa corruption. neefkan inta koow lacagta aad ku iibsatay lacagtii ku celiyi gad intii ka soo hortana baytulmaalka keen. Imagine that. ninkaas markii hore gaal uu ahaa, laakiin uswa xasana oo raac la yidhi ayuu raacay. tan saddexaad, tusaalaha saddexaad wuxuu ahaa saaxiibkiisa Amr ibn Caas, ninkii la dhihi jiray oo Masar guddoomiyaha gobolka u ahaa, waa dalka xukumayay Masar, ayaa nin qibti ah oo xitaa aan muslim ahayn oo Kirishtan ah oo dacwoonaya u yimid. wuxuu ku yiri Amr ibn Caas oo dalkaas xukuma, wiilkiisa aan tartan galnay, fardeen anaa ku guulaystay tayda, waa i garaaco yiri. markuu i garaacayena wuxuu ku qaylinayay buri ana ibn al-akramiin, cayaal madaxeed baan ahaa, aniga madax baa dhashay, ma ogid miya? fariin buu u diraa, la yidhi kaale iigu kaalay Madiina. waa saaxiibkiis, waa yimid, xitaa qabla alislaam bay saaxiibo ahaayeen. waa yimid ninkii gaalkii ahaa buu yidhi ma u jeedaa ninka ku garaacay? haa buu yidhi waa kaas wiilkaas wey. isagii wiilkiisaba dad buu u diray. usha waa tanaayuri ku garaac. wiilkii buu garaacay ilaa uu kaga dhergay. markuu ka dhergay buu yidhi aabbihiisana garaac. kaas buu yidhi aniga aabbaha waxba iima geysan yaa amiirulmu'miniin. hadda ninku waa gaal, cadaaladda feer, waxba iima geysan oo aabbaha. wallaahi maa darabaka buu yidhi ilaa bifadli abiihi, waxba kuma yeelinaya buu yidhi aabbihiis hadduusan madax ahaan lahayn. gaalada waxaasay qaateen, all those values ayay qaateen. taasu maxay keentay marka intaasoo dal oo islaama, muslima, carab ah inaan soo wada dulmarno oo ayagoo aan isku diin ahayn u imaanay. bani aadamka cadaalad buu sheegtay, bani aadamka maamul wanaag buu sheegtay, bani aadamka accountability buu sheegtay. dii kale nolosha waa adkaanaysaa. afka mayga waxaa la yidhaahdaa ruwid meelin roonga rahaasa, nafta meesha u roonay raaca, qofka diintiisa ma fiiriso. hogaamiyeyaal wanaagsan waana soo mareen, insha allah haddana kuwaas ka sii wanaagsan baana soo mari doona. soomaalida mar bay ahayd dad lagana baqo laguna daydo, naxariis badanna laga sugo. waa aragteen oo malaynaa qaliijka odayaasha, qaliijkan hadda lacagta tirada badan leh, odayaasha weli ka sheekeeya. waxay yidhaahdaan markay gaajana qabato soomaalidaa noo soo gurman jirtay, xoolo noo keeni jirtay, dahab noo keeni jiray, ku badbaadi jirin. waa aragteen oo malaynaa fideoyada odayaashooda. hadda dagaal waa shaqada keliya naqaanay oo waa taariikhda waa ogtihiin soomaalida ilaa iyo heerka dagaal ay ka gaarayso. dad micna ku fadhiyana waa ahay runtii. gabaya haddii la yidhaah, suugaan haddii la yidhaah, bad mareyna haddii la yidhaah, dhinac walba. laakiin dhibaataana soo gaartay, dhibaatadaasuna waa ka maxaynaa hadduu aniga dad badan oo qaar dhintay iyo qaar noolba ay ku jiraan ayaa rool modela iyo